Kulan ciyaareedka xiisaha badan ee u dhexeeya kooxaha kubadda cagta Elche iyo sidoo kale kooxda Alman ayaa maalinta berito ah waxa ay ku ballansan yihiin garoonka kubadda cagta ee Engineer Jericho ee dhaca degmada Cabdicaziz. Kulankan ayaa waxa uu markaasi ka tirsan yahay wareegga hore ee gabagabadiisa tartanka horyaalka gabdhaha ee dalkeena Soomaaliya. Labada kooxood ayaa markaasi ka mid ah kooxaha hoggaanka sida weyn ee markaasi ugu loolamaya, iyaga oo markaasi doonaya in markaan ay gacanta ku dhigto kooxda kubadda cagta ee Elche FC inay markaasi ka adkaato kooxda Alman ayaa sidoo kale iyadana waxay ka mid tahay kooxaha hardanka ugu jira sidii ay guul uga gaari lahaayeen kulan ciyaareedkan ay Elche ka hortagayaan. Xiddigaha kooxda ayaa waxa ay markaasi daneynayaan kulankan inay soo bandhigaan ciyaar aad u sareysa oo markaasi kaga duwan ciyaarihii hore ay markaasi ciyaarayeen. Labada kooxood ayaa kulankoodii koowaad ee horyaalkan markaasi isku wajahaya. Kooxda Elche tartanka sida uu bilowday ilaa iyo hadda wax barbaro ah maysan gelin, mana laga adkaanin. Kooxdan Alman iyadana sidoo kale waxay soo ciyaartay dhowr kulan oo aad u xiiso badan. Hal kulan barbaro ayay gashay, sidoo kalena hal kulan guuldarro ayay markaasi kala kulmeen. Horyaalka waxa ay markaasi doonayaan sanadkan in isbeddel weyn ay ku sameeyaan. Kooxda Alman waa kooxda difaacaneysa horyaalka gabdhaha ee dalkeena Soomaaliya, waxayna ka mid tahay kooxaha faca weyn ee markaasi sanadkan markiisii labaad ee ku dagaalamaya horyaalka kubadda cagta ee gabdhaha dalkeena Soomaaliya. Elche oo horaantii hore ee sanadkii hore laga qaaday ayaa sanadkan waxay diyaar garow u tahay inay markaasi guul ka keenaan kulan ciyaareedkani. Macallin Govind iyo sidoo kale ku-xigeenka Macallin Ayaan ayaa la filayaa in kulankan ay wax badan ka beddeli doonaan kulan ciyaareedyadii ugu dambeeyay ay ciyaareen, iyagoona ay soo bandhigeen ciyaartii ugu sareysay abid inta ay markaasi ciyaarayeen. Kulamada oo idil waxa ay markaasi wataan unbeaten oo weli lagama adkaanin, shabaqoodana goolal aad u fara badan maysan gaarin oo waxaa laga dhaliyay kaliya isku dar ahaan tiro gaaraysa ku dhawaad 9 ilaa iyo 10 gool oo markaasi laga dhaliyay. Halka Alman iyadana ay farqiga goolasha laga dhaliyay ay aad u yar yihiin, waxa ay markaasi doonayaan inay markaa guul ka gaaraan kulan ciyaareedkani. Maxaa laga filan karaa? Labada kooxood waa laba koox isku awood ah, xirfadooduna waa labo xirfado aad u sareeya. Waxaa jooga xiddigo markaasi door weyn ka qaata guulaha labada kooxood ay markaasi gaaraan. Waxaa la filayaa labada kooxood haddii ay markaasi iskaga hor yimaadaan in koox ay nasiibka ku yeelato in ay markaasi guuleysato ama barbaro ay gasho ama in laga guuleysto. Sanadkan oo uu ka duwan yahay sanadihii hore ee ciyaaraha kubadda cagta ee gabdhaha, sanadkan waxaa la ciyaarayaa ilaa iyo 11 line-up halka horey lagu ciyaarayay garoonka markaasi Salaxyada ee magaalada Muqdisho. Sanadkan iyagoo ka qaybgalaya ilaa iyo 10 kooxood ayaa si weyn ugu soo dhex muuqdeen horyaalka gabdhaha dalkeena Soomaaliya. Hoggaankana weli waa la isku dhagan yahay, faanoola far kama qodno oo weli waxaa markaasi socda wejiga hore oo hadda gabagabo maraya. Kooxda Elche oo taageero badan ku leh gudaha garoonka ayaa markaasi durbadiiba waxa ay sameyn doontaa isbeddel. Dhanka kale kooxda Alman iyaduna kama yareysato, waxa ay ka mid tahay kooxaha ugu taageeraha badan ee garoonka marka laga eego ciyaaryahanada. Labada kooxna dhammaantood waa ay wada diyaarsan yihiin oo waxaa la sugayaa beri galab iyo sidoo kale kulan ciyaareedkaasi natiijada ka soo baxda waan arki doonaa hadduu Alle idmo.